السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وادي سلامية وواسك تقبلوها قبل فارح ولا الكيس معوكي كيرا بشير بالله متناين حاسة قرص عب كيس قرشو درسكيس كنا ولا أراؤنا قرسيكو ساها جابا كجا لقتي معالي الشورية بناوين شانتا بغبغوري سود واد ميول بتودا ديودك كيسو قتهين وواسك وواسك تقبلوها وحان تكون سلامية سلامة إسلامك رأينا بدي نقول سود واد ما شاء الله شرقرية عدلدان جارسية بيتش والبا كتورة آديان وربنا دي ودا وركاسنا ويدي لو داقية ما شاء الله إن شاء الله هدو إلهي مركا كوبات وحالله يهي رأينا بدي نقول ميولو بيتين عالم كأتكسو كنتهين وانا دي كفانا وحانا ويلكيني وحانا يساحيبكين عدلدان قادة شرقرية جارسية بيتش والبا كتورة آديان ومركا كوبات مركا لبادنا وحان عاوة إذين هيا حق تاسو كسابسن شركي مان تدعي iyo labada maalin ay soo socoto waxa la filayo iyo doodo meesha ku biyo shuban doonto insha Allah haduu ilaahay marka koobaad cadaalada hala sheer gareeyo hala gaarsiiyo beej walbiya meel walba ha lagu tuuro aadiyan labadan maalin xaafad joog baan ahay samarkiina waa galna kuleel badan waa jira ma sha Allah iga raal noqdo marka maradan gacanta ku hayo yeesan idin dhibin aadiyan kuwa qaab darada wax beesh ku soo qoriyay loo bixin maayo marka koobaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad ba waxaan idinka codsanayaa inaad sheer gareysaan cajalada oo aad ku turtaan meel walba iyo beej walba aad gaarsiisaan ha naga reebina kuwa social media isla heshiin annagu cid wacan mayno qabiil u wacan mayno reerna u wacan mayno waxaan taaganahay reer nabad iyo nolol iyo inta wanaaga jecel ee fiidaanta jecel yaanu weydiisanaynaa inay gacmahooda noogu heliyaan abshir وانا اقول وانا اذا كفر حريا مدن محمد عبد الله فرماجو ان شاء الله هدو الهي رادو وصون نغنيا وحانا ديب لوغو دارين دونا دالكن سومالي انا دغبروه وحان كقيب قلي دونا او دالكن كداوان دونتان انا سفر سيئة او مقدشة يا سومالي اوسي سعودو او كقيب قلي على مسار كمدحوينهيني دالك سومالي مدن محمد عبد الله فرماجو هنية جميلة مركز رأينا بدي نقول جوشة وحاوي وح إنك هرتاجن ملأ رجع بسيطة فرح بدن أي هي الدورشة كعرينة أيوة باش عالم كبرشر كويسو يميسسكي فديان مركز تاسي وجوشة ينية ديسكا يحقق الجرتو إن شاء الله بلوي ير إنك حجاوي تاسي وتاس وحنا مركينا إذا كذب جيو ووح بدنا إذا كفهنسيو وحي ما تدعي ضدك واقار بايا برا قارنا دوادد حقيقة أو ريالتي الله صعد شركي فرمي شريتو أو سبتيعي وحي سيمد أحمد مذوبة يدني إيو لفتقرين إيو علي قودلاوة إيو رئيس الوزاري الدلكة إيو سيمد waxaa meesha ka maqnaa oo aan la arag amiirkii ummadda Soomaaliyeed baan la arag dad badan baa isweydiiyay waxay yiraahdeen waay shirka u furi waayay madaxweynaha dalka Soomaaliya kuwii mucaarad kale waxay ku faanayeen oo lahaayeen waxaan ku guuleysanay inuusan shirki imaanin mudane maxamed cabdullaahi farmaajo inuusan shirkiina furin iyo ku guuleysanay bay orneen isku soo duubo arrintaas siday ku dhacday baan wax yar idinka faahsiinaya dhageyso inta aanan arrinta galin waxaan rabaa dadka dawladnimada waxa qaabka ay tahay aan faahsanayn dawladnimada u maleynaya hebel iyo hebel wax ay yiraahdaan inay ku salaysan tahay yaan rabaa inaan hal qodob faahsiiyo oo dareemaan dawlad markaad maqashid waa saddex hay-adood weey waa hay-adda sharci dejinta oo judicialka ah qodobka qaybta labaadna waa baarlamaanka iyo sharci dejinta weey qaybta saddexaadna waa executive-ka ama fulinta judicial-ka waa maxkamadaha baarlamaanka iyo sharci dejintana waa lawmaker-ka weey executive-ka iyo fulintana waa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirada shaqaalaha dawladda oo dhan weeyaan marka
dadku waxaan rabaa inay arrintaas si fiican u fahmaan ninka la yiraahdo Rooble haddaad aragtid waa executive haddaad aragtid madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa executive waa fulinti weey yeysan waxba idin waarin dadkan aan wax baran aqoontana lahayn dawladnimada iyo nidaamkeedana aan la socon waxba yeysan idin waalin baan ka wada dhageysta marka hadda ka hor qodobkan waan u soo noqon iyo sababta keentay in madaxweynaha uu shirkan imaan wixii lagu wada hadlay iyo wixii la isku fahmay iyo shirarkii dhacayna waa idin dul geenaya waan xadaaradeysana warba iga buux laakiin waxaan isku dayayaa inaan soo koobo idinkana aan idin faasiyo xogta aan hayara aan idinka dabageeyo waxaan horay ummadda Soomaaliyeed halkan kala wadaagay oon ku eeg nimankan mucaaradka sheeganayo iyo Axmed Madoobe iyo Dani rag buugaagta akhriya ma ah rag aqoon leh ma ahaan idinku eeg sababtoo ah waxa ay maanta ku faracsan yihiin iyo qaabka siyaasadda ay ka fahmeenay maanta u dhaqmayaan waxa weeye waa wax shalay hor yaalay oo shalay to laga bariyay hor yaalay weeyaan baan idinku eeg sababtoo September 17 September markii la saxay oo October 2020 la gaaray inta maanta socotay iyo waxa maanta jiro waa wixii uu ra'iisul wasaaraha sameeyay oo ayagu diidanayeen way qodobadaas ku dheeraan maayo laakiin waxa weeye waxay nagu sameeyeen oo nimanka mucaaradka Axmed Madoobe iyo sameeyeen miiriyihii bay qabsadeen wax yar oo caruurta xataa aysan ku fikirin yay nagu dawaqiyeen hebel baa shirkii imaanin magaraysaa hebel baa ogolays wax noocaas marka waqtiyo badan bay iga baahanteen arrintaas la gorfay laakiin wixii maanta dhacay iyo xaaladdu siday ahayd ba kor istaagay dhageysto waa run madaxweynaha ma imaan maanta sababtoo ah uu imaanna waxa weeye in Axmed Madoobe iyo Dani ay ku jirto farxadoodii in farmaajo uusan imaanin oo iska dhaadhiciyeen farmaajo hadduu yimaado oo meesha uu soo fariisto in magaraysa wax uu ka badsanayo ayay iska dhaadhiciyeen xaqiiqda aad u dhageysto madaxweynaha Soomaaliya muddo dheer bay waxay ku eedeynayeen oo idaacadaha iyo meel walba taagnaayeen oo waliba geel iyo hub u soo qaateen nimanka mucaaradka in tanazul badane uusan tanazulin bay geel iyo hub u qaateen oo qabaa'il u kiciyeen madaxweynahana baarlamaanka intuu hortagay wuxuu yiri waxaan ku wareejiyay doorashadii iyo amnigeedii qabashadeedii ra'iisul wasaarahayga hadalkaad u dhageysto ra'iisul wasaarahayga ee dawladeena federaalka yaan ku wareejiyay sidii baa qayrayaan oran Rooble loo wareejiyay marka madaxweynihii ballantii uu qaaday ee ummadda Soomaaliyeed uu ka qaaday ee ahayd in ma garanaysaa uu u tanazulay in dalkan doorasho ka dhacdo iyo oofinay oo xaqiiqda dhabtay dhageysto ra'iisul wasaarihii baa wuxuu matalayay madaxweynaha iyo wasiirada iyo executive ka matalay dawladda lagu sheegayna waa inta dhageysta marka madaxweynaha Soomaaliya qolof ahaan iyo ballantii uu qaaday uu oofinay umba kursiga ka maqnaa laakiin dawladdiisii iyo ra'iisul wasaarihiisii miisku fadhi waana ninka shirka furay way dhageysta ayagu waxay yiraahdeen markay idaacadaha ka hadlayeen waxa weeye farxad baa dhacday shahba la cabay farmaajo meesha ka maqna farmaajo sidan aha annagu waan heshiinayna waan in la heshiiyo waa loo baahay laakiin ogaada Soomaaliya idinkana mid la socdo inaysan ahayn doodii soo socotay 9 bilood inaysan ahayn in doorashada qodobo ku jira la isku haystay inaysan ahayn waa idin cadaatay oo ummadda aqli u saaxiibka oo dhan arrintaas waa u cadaatay waxa la diidaraa 9 bilood ma ahayn qodobo ku jira heshiisyadii lagu heshiiyay ee waxa la diidaraa wuxuu ahaa muwaadinka Soomaaliyeed ee la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo la yiraahdo ya nafsad ahaantiisa iyo qof ahaantiisa iyo abuuristu Ilaahay uu sameeyay baa la diidaraa taana maanta ay cadaatay afkoodeena ka qirrayeen qodobkaas weey madaxweynaha wuxuu uga maqnaa oo uusan shirka maanta uga soo qayb galin oo wasiirkiisa koobaad ee uu asaga soo xushay ee uu kala soo dhaxbaxay Soomaali badan oo CV soo gudbisatay kala soo dhaxbaxay yaa shirka u fadhiyay una furay soona dhaweeyay raggan una u igmaday baarlamaanka hortiisa iyo ummadda Soomaaliya horteeda ayuu arrintaasi uga igmaday qodobka wixii dhacay iyo xaaladdu siday ahayd anigu maadaama wargaleenahay oo am garaysaay meelaha miiska wax ka socdaan aan taaganahay
soos keyga soos lagu kalsoonaan kara u yahay yaan rabaa markiina idinka dabagay dhageysan shalay live ka soo galay waxaan idin sheegay in la heshiiyay Axmed Madoobe iyo federaalka ay heshiiyeen oo laga heshiiyay arrintii gado ayaan idin sheegay waad maqasheen idaacadihii iyo dadka aan wax analyze gareeyo dhan maanta intaan habeen hore idin sheegun bay idin sheegay arrintaas oo dhamaatay gado arrinteedii waa soo xirantay maanta waxaa kulmay Axmed Madoobe iyo ninka la yiraahdo Dani iyo ninka la yiraahdo Cabdi Xaashi iyo ninka la yiraahdo Mahdi Guuleed ayaa iyagana kulmay sidaan wada ognahay la socon odayga Cabdi Xaashi ah oo baarlamaankii aqalka sare xilka hadda ka dhamaaday gudoomiyaha ka ahaan jiray markii dambena jabhadii badbaado qaran ka noqday gudoomiyaha ka noqday ee hubka qaatay ee dhufeesyada ka qodan jiray marinayo iyo meesha la yiraahdo Siigaale ee isbaarada dhigan jiray gudoomiyaha u noqday groupkaas iyo ra'iisul wasaare ku xigeenkii dalka Soomaaliya mudane Mahdi Guuleed iyo Axmed Madoobe iyo Dani baa fariistay waxay ku wada hadlayeen ban marka anigu idin dul istaajirayay dhageyso markii Baydhabo la tagay 2021 bishii labaad 17keedii iyo 16keedii markii halka la tagay yaa horta 14 wasiir oo maamulada ka socdeen maamul goboleedyada dalka iyo federaal ka socdeen baa halka fariistay ice breaking bay sameeyeen wada hadal la gorfeynayay baa socdo waxaa lagu soo daray oo bartaasi ajadayaashaas halka lagu gorfeynay lagu soo daray arrinta Soomaaliland laakiin la socdo guddigii 14 ka koobnaa ee wasiirada ahaa ee Baydhabo tagay kuma jirin hal shakhsi ah oo ka socday Soomaaliland iyo gobolada waqooyi ka socday kuma uusan jirin aadiyaan waxay ahaayeen dawladda federaalka ah maamulada shanta maamul goboleed bay ahaayeen arrinta ayada Axmed Madoobe iyo Dani yaa qodobada ku soo darsaday miiskii bay soo saarteen waaga ayada waxay yiraahdeen Cabdi Xaashi baa muddo dheer meesha joogay balaq asaga ha looga dambeeyo guddigii federaalka ka socday magaraysa arrintaasi halka lagu hadlayay fadhi waxay yiraahdeen Jubbaland ban hadda kala dhantaarayna moogi arrinta Soomaaliland waxa loo deenayaa dadka Soomaaliland baa loo deenay sidii bay horta arrintaasi Baydhabo looga soo tagay waag maanta marka iyo xaaladda hadda taagan nimankii reer waqooyiga ahaa beesha caalamka iyo dawladda federaalka iyo magaraysa ayagii naftirkoodii waxa la yiri maadaama waligeed caado ahaan jirtay soo jireen 20 sano ee la soo dhaafay in ra'iisul wasaaraha markaasi xukuumadda markaa jirta hayo inuu guddi u magacaabo gobolada waqooyi doorashadeeda sidaas bay ahaan jirtay waa in sidii lagu dhaqaabaa la yiri tiiba marka beesha caalamka cadaadis Cabdi Xaashina ku saartay Mahdi Guuleed iyo rag kale oo fara badan ma garaysa ayagana adiga reer waqooyi siyaasiyiinta dhan ba pressure lagu saaray dhageysta marka ninaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ahayn mudane Maxamed Xuseen Rooble aan ahayn guddiga Somaliland ninaan asaga ahayn soo magacaabi maayo waana 12 xubnood dhageysta marka Axmed Madoobe iyo Dani yaa isxilqaan waxay ka damacsan yihiin waxay rabaan garan maayo laakiin anigu waan garanayaa laakiin waxay ka rabaan dadku aad uma fahmi karaan oo caaladeeda waa la isweydiinaya waxa leeyahay Axmed Madoobe iyo Dani maxay ka rabaan Soomaaliland arrimahooda iyo doorashadooda iyo baarlamaankooda yaa la isweydiinaya xaqiiqdu waxay tahay Axmed Madoobe iyo Dani yaa odayga Cabdi Xaashi ahaa oo horay arrin duulduul oo jirtay hay'ad ma garanaysaa markii dhuusan reeb la jooga dad ogtiin la yiri dhowr xubnood qaado inta kale ninkan u daa ahayd iyo dawladda u daa ahayd arrintii baa macnaha ayagu ay dib u soo cusboonayeen oo yiraahdeen arrintii baa negotiation kula gareynaa Maxamed Xuseen Rooble ninkii Mahdi Guuleed waxa la yiri ra'iisul wasaaraha bal culayska aan ka yara dhigno oo bal intaan adiga Mahdi Cabdi Xaashi soo timaadaan Cabdina lixsi Mahdi Guuleed adiguna shan qaado arrin noocaas horta meeshii la fariistay xaqiiqda jirtana waxa weeye macna badan ii sameyn mayso idinkuna idin sameyn mayso Axmed Madoobe iyo Dani waxa ay ka rabaan oo ay faragashanayaan arrimaha Soomaaliland doorashadeeda guddiga macna baarlamaanka imaara Soomaaliland waxa ay faragashanayaan macna badan ii sameyn mayso laakiin xaqiiqda jirta waxay tahay in tii hore ee dawladda federaalka Soomaaliya ku garaysa ku adkaysatay ee ahaa ee beesha caalamka ku adkaysatay ahayd in maadaama Somaliland special case ay tahay dhageysto
special case ay tahay oo Somaliland naftirkeeda dadka degan magaraysaa kuraastana kule federaalka ee warqado u dirayaan beesha caalam yaa waxa la yiri ra'iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya magaraysaa guddiga soo xulusta baarlamaanka looga dambeeyo tiiba markaasaan hadalka idinku wada idinku sheegay in ra'iisul wasaaraha culayskaas Axmed Madoobe Deni maadaama uu yara dhago nugul yahay oo meelo badan laga soo sheegay in hoos u degaan oo Mahdi Guuleedna uu shan qaato qodobka kaas weey shan qaato Cabdi Xaashina 6 la siiyo sidaas ay ku heshiiyaan magaraysaa ra'iisul wasaaraha magaraysaa 6 uu wato Cabdi Xaashi 5 uu kan wato si ra'iisul wasaaraha uu gud ahaan ugu magacaabo ayay magaraysaa dooriyeen isku soo duba arintaas arrin soconayso Mahdi Guuleedna arintaas ma qaadan arrin soconaysa ma Cabdi Xaashina kama awood badnaanayo reer Somaliland kale ee joogo Soomaaliya iyo Muqdisho joogo awood dheeri ka qaadan maayo siday caadadu ahayd waligeed ba soo jireenka ahayd 20 sano la soo dhaafay arrinta lagu saleen jiray ee ahayd in ra'iisul wasaaraha markaasi dalka joogo markaa doorashada dhacayso xukunka haya uu soo magacaab jiray xubnaha guddiga soo diyaarinaya baarlamaanka Somaliland Soomaaliya ka qayb qaadanaya taasa lagu soconaya marka arrintaasaan maanta socotay howshaas dhex socotay dhageysta marka anigu fikirkayga waa cadiya activistana waana laakiin mabda baan leeyahay oo anigu aan ka duulaa mabda aan leeyahayna waxa weeye waa nabad iyo nolol iyo madaxweynaha Soomaaliyeed ee dalkan waxa wanaaga faraha badan u qabtay ee ummadda Soomaaliyeed dhibaatada haysatay dhibaatadii wax yar ka soo saaray ee gaaliya iyo Soomaaliba inta isugu tageen iyo shisheeye isugu tageen ay rabaan inay magaraysaa nolosha yar oo Ilaahay siiyay ku neefsanay inay ka qaadaan doonayo ayaan anigu taageersanaa kamana gabadana arrinta ayada dhageysto marka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maalinta labaad maalinta saddexaad ee shirka la soo xirayo ee magaraysaa warqada la saxiixayo ee magaraysaa wixii hadda la isku soo afgartoon idii soo sheegno dhan la hagaajinayo iyo madaxweynaha imaanaya madaxweynihii federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa imaanaya markuu yimaado khudbad buu jeedinayaa qurux badan oo qiimo badan buu halkaas ka jeedinayaa wuxuu soo dhaweynayaa shaqadii uu qabtay ra'iisul wasaaraha naga mudane Maxamed Xuseen Rooble shaqadii uu qabtay uu soo dhaweynayaa waxa bartaasi si laab xaaran oo dhibaato ku jirin oo aan nin cabaysi ku jirin oo ummadda Soomaaliyeed loogu dareenayo iyo madaxweynaha ku dhawaaqay uu leeyahay Axmed iyo Dariyo si kasto oo ku faraxsaneedeen iyo wax kasto doonayseen sameeynay xataa hadaa tiraahdaan kursigaaga ku soo fariisan beesh ka tagay uu yiri madaxweynaha ummadana u tarasulay taasa dhacayso dhageysto taasa dhacayso oo aan sugaynaa insha Allah haduu Ilaahay madaxweynaha Soomaaliyana mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa cadaatay Axmed Madoobe iyo Deni iyo mucaaradku inaysan qodob ku doodeynin oo aysan qodob ka doodeynin yaa cadaatay oo waxay ka doodayeen oo ka dagaalamayeen oo ka dhimanayeen oo ahayd kaliye in mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shakhsiyadiisa nin nacaysi ahayd ba cadaatay waana sababta uu madaxweynaha naga ummadda Soomaaliyeed inuu u cadeeyo ugu talagal ogana baaqday shirki maanta wad arkaysaan Axmed Madoobe iyo Deni iyo mucaaradkii waxa farxad ka baxayso wuxuu ahaa dagaalkooda siyaasi ma ahayn wuxuu ahaa dagaalkooda dalka waxa la tarameen wuxuu ahaa dagaalkooda inay Farmaajo un shakhsiyadiisu ay la dagaalamaan cadaat mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta siyaasi ma garab taagan waxa garab taagan wiilal siyaasi hunguri leh oo caada qaato dadka dhici jiray maanta ma garab taagan Farmaajo maanta waxa garab taagan gabdha Soomaaliyeed oo wax bartay wiilal Soomaaliyeed oo wax bartay siyaasiyiin cusub oo dhalinyaro ah oo uu kariyad gareeyay uu sameeyay ba garab taagan madaxweynaha oo magaraysaa wanaag iyo fiicnaan ku garab taagan waxa garab taagan hooyooyinka Soomaaliyeed ba garab taagan dhageysta marka madaxweynaha naga uu guuleysan وأنا صوبت اللوج عليه وصوبت الشعب كوج عليه لكن سياسيين تبين على ياشع أنا قد يد الحين قال إنه صادر سدولي بقال كشيء يوسكع شونين ويجينا كبريري يعني ذرك يسان عد المرء فرمادنا وكأغلب بديي وأنا بهدلي دقيقة استمر جبل لان لقى سو هشي أرنت هذه وصور مات
doorashadu waa dhacaysaa nimankaas Somaliland cabdi xaashi wax loo gacan gelinayo haba yaraatee ma jirtay dhageysto wax kale meeshan jiro male beesha caalamka saddex cishay siisay ra'iisul wasaaraha iyo dawladda federaalka Soomaaliya dhaqaale badan ma jiro meeshan axmed madoobe hilib badan oo la siiyo meeshan ma yaal dani hilib badan oo meeshan ku cuna ma jiro nimanka kale hilib badan oo meeshan ku cunaan ma jiro saddex cisho dhaqaalaheedii yaa loo qoonday maalin in dhaaftay saakana wax kala dhici oo arrimahan hadda aan ka hadlay Somaliland oo ay adag tahay baa miiska la soo saaraya waxayna ku soo dhamaanaysaa guddi uu soo magacaabo ra'iisul wasaaraha taas halkaas ku dhamaan madaxweynahana wiilkii uu Soomaali ka doortay uu kala soo dhaxbaxay uu bisha la maqnaa markii khayra shaqada laga fiijiyay la buriyay la bahdilay 7 daqiiqo shaqada looga qaaday oo Kenya u carray madaxweynaha bil buu baarayay wiil Soomaaliyeed oo daacad oo dalkan u shaqeeyo wuxuuna soo helay Maxamed Xuseen Rooble haddaad aragtid farmaajo waad aragtid Maxamed Xuseen Rooble haddaad aragtid duqbilowna waad aragtid sababta dawladdan xukuumadii weeye waa fulintii weeye waa executive-kii weeye wax walba oo bartaa ka soo dhaco supervisorkii baa lagu la dhaqoray company supervisor laad ma socdo magaraysa aad yaad gurina magaraysa aabalaan waa dib badan yahay inuu dhaqaaqo aabihii dalka waa madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo wuna guuleysanay insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo dhageysta marka qodobkan aan idin sheegayaa waxaa maalin dhow bixi doona ama khamiistan u maleynaya maalinta khamiista ay tahay waxaan rabaa hadalkeena dib igu soo celisaan insha Allah hadduu Ilaahay maalinta khamiista shirkan markuu dhamaado waxaa ka duuli doona magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble yaa ka duulayo wuxuu tagayaa Kenya dalka Kenya tagayaa wuxuu la kulmayaa madaxweynaha dalka Kenya waxayna ka wada hadli doonaan sababta keentay Soomaaliya oo ku dhawaaqday in xiriirkii la soo celiyay oo Kenya soo dhaweysay in dawladda Kenya hadarana ay diyaaradihii iyo socodkii iyo businesskii dhaqaalihii dadka labada dal ay Kenya ku degdegto ay arintaas ku fad waxa keenay ra'iisul wasaaraha soo weydiin doona insha Allah marka arintaana ay surprise idin ku noqonin arin magaraysaay fajacday idin ku noqonin waxaan rabaa markaad maqashaan oo banaanka maqashaan inaad tiraahdaan ugaaska dhalay duqbulow yaa inoo sheegay maalintii ay ahayd taariikhdu 22 markay ahayd yuu noo sheego wuxuu yiri ra'iisul wasaaraha nagi Maxamed Xuseen Rooble wuxuu aadayaa Nairobi waxa soo dhaweyn doona Uhuru Kenyatta marka way buunbuurin doonaan waan ka horeynaa insha Allah marka hadduu Ilaahay yiraahdo arintu waan la soconaynaa saacad baan la soconaynaa guusha reer nabadina la u sheegayna waxa weey in madaxweynaha naga uu soo noqonayo in ra'iisul wasaaraha bartaa fadhiyo uu ra'iisul u shaqeeyo madaxweynaha yan idin sheegaya waan salaam iyo cajaladana sii shargareeya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh